diyaaradan caalamiga ah ee Hala Airline ayaa maanta soo cagdhigatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Dhammaan Soomaali weyno hora loo soconaya wala soconaya hora loo soconaya wala soconaya ku dakaya diyaaradaas oo xajka aanu dawaafno. diyaaradani oo mid casri ah ayaa nooceedu waxa uu yahay Boeing 737-300 waxayna ka shaqeyn doontaa duulimaadyada caalamiga ah si gaar ah mas'uuliyiinta shirkadda diyaaradani waxa ay sheegeen inay uga shaqeyn doonto duulimaadyada xajka. mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda, siyaasiyiin, waxgarad, culamaa u diin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabad xariga looga jariyay shirkadda diyaaradaha ee Hala Airline. Sheekh Ibrahim Macalin Cali oo ah milkiilaha shirkadda Hala ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay si wanaagsan uga shaqeyn doonaan isagoona ka hadlay waxyaabaha ku qasbay keenida diyaaradani. haddaan nahay shirkadda Hala waxaan ugu talagalnay service oo Soomaaliyeed inaan Soomaali aan u shaqeyno ayaan u imaadnay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdana waa ka soo bixi doona hawlihii loogu talagalay si ay u fuli lahaayeen inaan ka shaqeyno hadduu Ilaahay yiraahdo. hawshaanna waxaan ugu kalifay markaan aragnay dabacsanaanta iyo dhibaatada Soomaalida haysata meel walba oo tagno safardan ku tagno markaan aragnay ayaa waxaan noo muuqatay in ay kaalintan meesha ay u baahan tahay sidaas ayaan ku imaadnay. alxamdulillah waa Ilaahayna waa noo suurta geliyay waana ku mahadsantihiin Ilaahayna ku mahadsan bacdallah. Sheekh Ibrahim oo hadalkiisa wata waxa uu ka hadlay duulimaadyada shirkadda ay sameey doonto. shirkadda waxa waaye hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa loogu talagalay in service-ka dhammaan gobolada oo Soomaaliya oo dhan wadamada ay la xiriiro sida Kenya, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti, Dubai, Saudi Arabia xajkan ugu muhiimsan yahay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inay intaas ay qabato waana arrin muhiim ah oo waajib noo saaran ah. Xildhibaan Maxamuud Beene gudoomiyaha guddiga ganacsiga baarlamaanka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan shirkadani. waxa uu sheegay shirkadaha cusub ee dalka ku soo kordhaya ay fursado shaqo u abuurayaan dhalinyarada Soomaaliyeed. anoo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed waliba guddiga qaabilsanay arinta ganacsiga aad u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay waa idinku duceynaynaa Ilaahay inuu idin barbaariyo dhaqaalihiina kor u sii qaado si aad diyaarado kale badan u keentaan shaqaale badan aad u qaadataan dawladana cashuur idin ka hesho intaba aad iyo aad idinka madcilinaa guul iyo sharaf idin rajayna service-ka iyo shaqada aad qabanaysan waxaan rajaynayaa in tayada ugu fiican oo tartanka marka loo fiiriyo dadka ay ku raaxaysan karaan maxaan ku dhahaa tayadeeda inaad qaadan doontaan. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar oo dhankiisa munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in shirkadani looga baahan yahay inay adeeg wanaagsan ku soo kordhiyaan duulimaadyada dalka. quality-gooda fiican yahay, service fiican aan ku tuhmayno iyo ganacsato Soomaaliyeed ayaa diyaaradahaas inoo keenay. soo dhaweynaynaa insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa xujayda Soomaaliyeed in ay arintani u fududeyn doonto inay ku gutaan xajkooda qiimo fiican, service fiican hadduu Ilaahay ka raali noqdo oo ay u fududeyn doonaan ayaan insha Allah tacaala aan rajaynaynaa. shirkadda ganacsatada wadata badi waa dad aviation ku soo jiray oo anaga garanayna hore u garanaynay hore isla wada shaqeyn jirnay halkan dhammaan iyaga muuqdo. marka waxaan filaynaa service-kii diyaaradaha ay bixin jireen inay kor u qaadi doonaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo. ugu dambeyntii Imaam Maxamed Yuusuf oo soo gabagabeeyay xafladda ayaa la dardaarmay mas'uuliyiinta shirkadda diyaaradaha ee Hala. waa idin la dardaarmaa intaana duceynin Allah idin la jiro shacabkana dhowra dadkana u daneeya haddii Allah yiraahdo waana la idin baran doonaa khayraan idinka sugaynaa. Allah na cafiyo muraadkeena Allah sahlo diyaaradaha ugu khayr badan Allah ka dhigo inaan anagu waa ka soo qayb galay tii mahadis Allah ka dhigo tii diyaarada dhasha Allah ka dhigo way isu duceeyay Sheekh Ibrahim oo dadaal anna waa ku duceeyay garabkaaga Allah galo. diyaaradda Hala ayaa sanadkan xujayada Soomaaliyeed ka qaadi doonta magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Garowe. Cabdiraxiin Caylaawe, Somali Cable, magaalada Muqdisho.